kulankan oo qabanqaabadiisa ay iska kaashadeen ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nosage hay'adda ICT DXD isla markaana ay ka soo qayb galeen wariyaal madax ka socotay hay'ado warbaahineed iyo marti sharaf kale ayaa lagu lafagurayay xeerka qabyada ah ee warbaahinta dalka Soomaaliya kaasoo la doonayo in loo sameeyo warbaahinta Soomaaliya kulankan oo isku xidhayay Cabdisalaan Maxamuud Jaamac ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Burhaan Axmed Daahir oo ah xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP kan Puntland iyo kan Somaliland markaad fiiriso intaba يعني دستورات ساعات بيقدمان القاضيين لكن شرعي اللي تجيه ميديا اللي جوها مد هذا ندبوا إنكريا وأود دستور كبحية يدبوا له وريجين. sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah khubradii dhanka warbaahinta ee ka soo qayb gashay kulankaasi miidyada ama warbaahinta Soomaaliyeed waxay soo martay 4 heer oo waaweyn mid wuxuu ahaa waqtigii kolonyalka ama Ingiriiska ama Talyaanigu uu joogay stage-ka ku xigay wuxuu ahaa kolonyalkii dawladdii civilka ahayd Soomaaliya oo aan malaynayo 9 sano inay jirtay kuwii koobnaa oo warka fiican gudbinayay ku dhaxmilma oo warkii uu iska noqdo qof walba waxa doonta ashag marka waxa jira online-ka Soomaalida خسارة يفائدة الله ولا فائدة هذا هو مريو أن وحى النقطة ماشي كلية دتك اسكو حرت اسكو سودو ويسا فكرة لوكا لغاتو لسكو برتو لغو الصعدو أن هذا في رصيد أن مصورات فيديوهات أن لقليو دتك أكو أركتان kulankan looga tashanayay xeerka saxaafadda Soomaaliyeed ee qabyada ah oo wadamo badan hore loogu soo qabtay ayaa ugu dambeyn Cabdisalaan Salwe oo ahaa xiriiriyaha kulankaasi waxa uu uga warbixiyay warbaahinta kulankan iyo muhiimadda loo soo agaasimay saxaafadda aday ahaan saxafiyiinta dadka milkiilayaasha dadka dhinaca sharciga ka shaqeeya iyo hay'adaha ka shaqeeya kulan ay kala hayeen kulamo muddo soo socday oo khuseeya sharciga saxaafadda ee qabyada ah ama sharciga warbaahinta ee Soomaaliya ee haatan qabyada ah oo ku jira marxaladii wada tashiga maanta wuxuu ahaa mid ka mid ah wada tashigaas waxaana soo abaabulay hay'adda IST iyo hay'adda Dialogue Exchange and Development DXD ayaa soo abaabulay waxaana gacan ka siiyay Media Association of Puntland MAP loo yaqaan waa hay'adda warbaahinta Puntland iyo Nosage oo ah ururka midowga qaranka ee saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa gacan ka siiyay Xasan Sheekh Umar Home Cable TV Nairobi.